bbcsomali.com maalin wanaagsan dhammaantiinba barnaamijka qodobadan idinkugu hayo waxa kamid ah weerar qarax gaari kaalinta koobaad waxa fadhiya wariye Cabdirasaaq Xaaji Atoosh kale waa boqorka Soomaalida Facebook sanado badan ayuu ka soo toosayay fooq ugu sareysa ee Soomaalida Wajibug Cabdirasaaq Xaaji Atoosh waa wariye muddo dheer ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waana sababta ku dhawaad 1 milyan oo qof ugu xiran tahay boggiisa Facebook Atoosh waxa ku xiran dad gaaraya 980,000 كبول عناية بين كتاب مبعاد نذبا لها كشري إنه باهي هاي وبحر كتير وامدون بحن kaalinta labaad waxa ku haagsatay fanaanada codka tolmoon nimco dareen taasi oo mar qura qabsatay dagaha jiilka cusub ee xiiseeya fanka Soomaalida sanadihii 2009 ilaa 2014 xilligaasi oo ay fanka Soomaalida ku dhuuqaysay malab iyo macsaro waxay geed dheer iskaga xirtay fanaanad walba oo fanka xilligaas xaadir ahayd nimco waxa ay haysataa taageerayaal kor u dhaafay 556,000 dareen waa gabadha iyo fanaanada kaliya ee ka soo muuqatay liiska top 5ka Soomaalida Wajibug السلام عليكم adiga iyo ogolow in aan wehel ku noqdo bisha barakaysan ee Ramadaan kaalinta saddexaad waxa ku raaxaysanaya wadaadka caanka ka abraha bulshada Abu Bakar Muhammad kaasi oo mar qura bul ka soo yiri Wajibug sanadkii 2017 waxa ku xiran 497,000 oo qof waxa uu ku kasbaday muxaadarooyinkiisa laxanka macaan lagu laray sidoo kale waa qoraaga buugga ku raaxayso nolosha سدول بس كذا مدحونيش ولا كل ما حتى مدحونا أنا كل ما جرت أنا قاعد واو which president أي مدحونا أمريكان كا مدحونا أمريكان ولا كل ما أنا قاعد كتلفون كلا حرير kaalinta afraad waxa ku baashaalaya afmaalka sanadihii dambe la wareegay furayaasha Facebook-ga Abuukar Culusow dad badan ugu yeeraan Culusow madax barar waxa uu tabcaday in ka yar sanad 454,000 oo qof kaasi oo ku soo jiitay filmaanta majaajileysta reer Uganda oo ku laxameeyay codkiisa oo lagu daray erayo qosol xambaarsan Culusow ayaa toddobaadkii hore dhigtay score cusub sidoo kalena hanjabaad culus u diray murqaweynta kaalmaha kore fadhiya kadib markii ay 36,000 oo qof sawirkiisa oo soo dhigay layta iyo loofta ku boobeen kaalinta shanaad waxaa barkin dhigtay isla markaana hurdo dheer kula tagtay Daahir Calasow waxa uu mar ahaa libaaxa kaliya ee looga daba hadli karin Wajibug kan kaliya ee looga dambeeyo xogaha xasaasiga ah wuxuu gaarigu kaga banjaray meel cidla ah waxa uu noqday sida libaax duqoobay oo ilkii iyo indhihii babeelay Daahir waxa uu haystaa 406,000 oo flow waa Shucayb Maxamed iyo tiimka YouTube-ka dhalinta qurbaha oo idin leh nagu soo biira adigoo na jecel nala jooga annagoo jecel amaana Allah